taliyaha ciidanka asluubta xabsiga dhexe ee gobolada bariga Soomaaliland ee degmada Garada Ganshaale Cabdilaahi Axmed Talan ayaa maruu wareysiisay qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha degmada Garada ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabihii uu qabsamay muddadii xilka uu hayay sida dhinacyada nabadeynta horumarinta xabsiga bilicda iyo beerista dhirta sida oo kalena waxa uu ka hadlay caqabadihii adka ee ka hor yimi muddada uu hawsha ku dhex jiray dhinaca kalena waxa uu sheegay waxyaabaha u qorshaysan muddooyinkan soo socda dadkii ciidankii galbeed laga keenay waagi dhaweydii qalalaasaha labada beelood u dhex maray oo amar madaxweynuhu ka bixiyay in gar adag iyo ceelaf weyn la geeyo ciidamo aan ahayn labadii beelood ee meesha ku dagaalamay ee carqaladu dhex martay aan ahayn Soomaaliland kala marka waxaan ahayn dadkii loo doortay inay arrinta wax ka dejiyaan xal keenaan ummadii walaalaha ay wada dhalatay ee culowday inay deeynahooda buuxiyaan oo isku soo jiidaan oo nabadoodii ka shaqeeyaan oo horumarkoodii ka shaqeeyaan dadkii loo igmaday ee madaxweynuhu ku amray taliyaasha ciidamada sida booliiska iyo taliyaha ciidanka asluubta in ciidamada hore joogi jiray reeraha deegaankaas u dhashay laga soo qaado annaga la keeno tasfaan ku nimid saasay Garada anu waaba safar ku maray anu waaga booliis baan hayo waxaan maray waxaan socdo ceelaf weyn xaga waaga hore waaba safar ku maray Garada hore u baaqoon waan taana baawur baan ku dhex maray way ko marka waxa si kala duwanaansho weyn baad ugu nimid anagu galbeedka aan jirno waa dhul nidaamka dawladnimadu aad u xoog badan yahay oo systemka dawliga uu shaqeeyo oo qofka iyo sharcigu sareeyo oo dadku ay u hoggaansan yihiin sharcigoodana inta badan gacanta kuma fushadaan qofku hadii dambi uu galo ama laga galo de sharcigu u dacwooda waxaan nimid bari oo nin waliba geelisiyo arigiisa qoriba ku raacanaya sharciga ma yeelayo ma aqbalayo waad garasoma askartii u dhalatay halkan deganeed waxaan u malaynayaa dimalaha iyagii hadda ciidankii halkan laga bedelay Madeira la geeyay hadii la wareysto kadeedkii ku qabeen doorta iyagu way sheegi doonaan laakiin midii markaan maalmo muddo joogno dadkii way la qabsadeen oo systemkii dawliga runtii horta aad bay ugu faraxsan yihiin oo nidaam dawli oo adag oo de aqoontii iyo khibradii ciidannimo iyo Soomaalilandnimo ayaan la nimid meesha anagoon iyo qabiil iyo dadkii meesha joogay xasaasiyadu ka dhaxaysay aan midnaba shaqo ku lahayn waxa kale oo xoog saarnaa oo aad u caawinaa ciidanka booliska oo aad ugu yar degmada waan caawinaa hawl walba waan kala hawlgalaa marka waxa weeyaan wixii wada hadal ama la xalinayo xaqii nabadda xaq marba nabadoon noqonaa oo nabadda ka shaqeynaa imika de kolka ciidan ahaan leego sarkaalka ku darajo sareeye degmada jooga waa aniga ninka taliyaha saldhigga degmada jooga waa kabtan marka de waa isku ixtiraamnaa xaqii darajadiina marka wax kastuu garan waayo ama ku adkaada dawayga la tashada waa la xaliya isaga iyo anigii gudoomiyaha degmadu nabadgeliyadii iyo horumarkii magaalada aad baa iska kaashanaa saddexdaas waana saddexda qof ee ugu muhiimsan hadda magaalada jooga deena ka shaqeeyaan nabadeedii horumarkeedii looga fadhiyo anu markaan sidaa u yimid waxaan arkay goldololooyin badan oo igu haboon inaan wax ka qaban karo waxaan aad ugu mahad celinayaa ciidankii horkaalan xabsigan hore uga shaqeyn jiray mishaar ma qaadan jirin mishaar raashinna ma qaadan jirin waxay gelin jireen mishaarkooda raashinkooda iyo xoogooda xabsigay gelin jireen way ku dhiseen xoogooda ku dhisi jireen meeshaas iska cidlaabay bilaabeen deetana xabsigii waxana qaaday Soomaaliland xabsi ay ogoshay oo shaqeeya ayuu noqday markii juhdi la geliyay dadkii deegaanku de iska kaashadeen anigu haddaan mid waxaan go'aansaday markaa maadaama dadkii iga horeeyayba ay wax qabad muuqdo meesha ka muujiyeen aniga waxa igu soo beegmay ii haray demaha xabsigii inaan dhiso oo xabsi bilow dhisatay ma uu dhismo rag baa ka shaqeeyay aniga waxa igu soo beegmay markaa inaan bilicdiisii quruxdiisii horumarkiisii iyo de nidaamkiisii inaan hagaajiyo inta ii banaanaatay ee ugu imid baa intaas laakiin aan isku day sameeyo marka saa darteed xubun waxaan aad uga mahad celinayaa waxa aan qabtay saga qabta sababteedana sagaas kale waana waxaan aad uga mahad celinay boqolkiiba aniguna waan dadaalay inkastoo dhaqaale aanan haysan oo xabsigan de budgetna kuma qaadano xukuma qaadano dawladweynuna de ictiraafna ma haysato waxay masaariifta maxaabiista iyo wax ku dagaalantaa mishaarka yar ee askariga ayaa sida lagu soo helaa dawladnimadeeda adag imkaan oo darajadeedu waa gaashaan la sarkaal baan hayso ma mishaarkayga jaariyadi ma qaadato marka loo eego jaariyad ma guri ka shaqeysa ma qaadato lacagta aan qaato marka lacag ma eegayne anagu waa mutadawacnimo waxaan ku shaqeynaynaa oo dalkayaga dadkayaga iyo diinteeda inaan u shaqeyno hadday jeebkayaga wax ka soo baxaana inaan gelino ayaan ku aasanay marka anigu waxa iga go'an waxaan haystay iska daaya aniga mishaarkayga xataa waxaan siiyaa mishaar markuu ii soo dhaco mishaarkaygu ii yimaado ciidankan berimiya u siiya ciddii shaqo fiican qabatay kow markaan halkan imid waxaan ka bilaabay horta ciidankii aan wada soconays maanaan aqoon
ururis bay ahaayeen meelo kala duwan laga keenay dhaqamo kala duwan dee xubin walba xabsi gooni ka soo shaqaynayay waxaa laga yaabaa taliye kasta markuu ciidan bedelayo wuxuu iska bedelaa kawhayn waaye ee amarka aan qaadanayn ama qallafsan buu iska bedelaa cid wada fiican nin askari fiican cidna iska bedesho waa laysoo ururiyay ciidankii oo kale dee sida nooca aad arkaysa abaa halkan layla keenay waxa waqti igu qaadatay inaan ciidanka ka dhigo ciidan dishibiliinkiisu dhisan yahay habaysan inkastoo dee rag dhul ciidan tababaran iyo nidaam ka jira ay ka yimaadeen haddana waxaa jira meel kastoo nidaam ka jira askari dee si gooni u yar socdo taliyihiisii uu qaatiyaan ka taagan yahay baa dhici karta haddii la yidhaha soo bedeli marka aniga haddii la yidhahdo dee ciidan bedela lagaaga baahan yahay dee ka fiican iska bedeli maayo marka waxay igu noqotay dee in ciidankii iyo anigu saan isku fahmi lahayn waqti bay qaadatay waxaana markii dambe ku guulaystay ciidankii inaan ka dhigo ciidan dhisan nidaam leh dishibiliin leh shaqadoodii ka adag oo habaysan oo 10 nin halkay joogto dee dhowr boqol ba u dhigmayaan waad garsooma inta markaan ku guulaystay waxaan soo jeestay bilicdii xabsiga inaan hagaajiyo koow waxaan ka bilaabay geedaha quraacda ee magaalada ku yaala ee wasaaradii deegaanka u joogto ee daayacday ee aan wax la ka qabanaysan jirno nimanka deegaanka wasaaradda deegaanka u jooga dhuxul yeeryadaan geed la soo qalajiyay yeeryadaan juwan loo soo qaaday iyagu waxba ka qabarin markaan arko anna wadadii aan ka shaqo tagayay ku yaalaan waa xabsiga iyo waxa u dhaxeeyaan iyo magaaladii de indhahayga xamiliba waayba anagoo taa ka duulay anaba danaysanayba si aan bilic u sii dhex maro kolkaan xabsiga tagayo dhul qurux badan habaysan geedaha jaajuurkaan ku wareejay lacag badan bay kaga baxday biyahan inaan u qabto geedkan bilic maalin kasta booyad biyaan ku shubaa maalin dhaaf ama 3 maalmood mar ayaan booyad u dalbaa booyadaas waraabisa geedaha waa fahamsama waxa kaloo iga go'an intaa geedeen ugu imid inaan saa u dhaqaaleeyo 300 oo geedna inaan beero waa go'aankayga marka 300 ee geed halkan ka doonan lahaa ayaa hadda hamigay ku jiro qof fikiray marka xabsiga iyo magaalada inta u dhaxaysa waxaan rabaa wadooyin dhir ah oo dhir kaleymadka ku baxaysan raadinaya oo biyahan dhanaan la qabsan karto marka waxaan rabaa xabsiga markaan u sii socdo ama dadku u sii socdaan xabsiga inay geedo qabow sii dhex maraan oo dhul bilic leh oo dawladnimo ka muuqato oo astaan qaran leh inay noqoto habaysan ma jecela si deegaankana dee dadku ugu day wada halkan soo gashay wada halkaas dusha ka soo gashay labadaba waxaan sameeyay laba checkpoint oo control ciidanku leeyahay in laga sameeyo oo gaadhina soo gudbi karin ilaa gaadhi la aqoonsaday waxaan ahay waayo waxaan meesha ku haynaa waa dil iyo kufsi waxaan meesha ku haynaa saacad kasta la soo weerari karaa dagaal wax weey meel walba filan kartaa marka inaan taxadir ka sameeyno dhinaca amaanka in xabsiga ilaaladiisa inaan xoog ka saarno waa laga maarmaan haddaan asluubnahay haddaan magaalada iyo booliiska iyo annaan waxba u qaban karin dee kaliya la naga rabaa waxa weeye sugidda amniga xabsiga la naga rabaa marka tiina inaan dee sugo aan xoog ka saaraa laga maarmaan waxa kaloo iigu yaabadnayd waxa iigu adag ee maskaxdayda geli weyday ee liqi waayay waxa ahayd inaan ugu imid madrasad xabsiga ku dhex taal oo ceelka maxaabiistu ka dhaansata uu ka shisheeyo oo maxbuuskiyo diloo la wadaa soo dhex marayo sii dhex marayo in 100 arday oo caruur oo magaalada ka imanaysa ay wax ku dhex baranayso maalintan koow imid waan is weydiiyey taliya qaybta weydiin waxa ku taliya meeshan maxay ahayd say madrasad ku noqon kartaa waa quraankaas lagu barayaa waa kaas oo taasay ahaan jirtay aad baan uga fikiri jiray aduu muddo markaa maskaxdayda ka shaqaysiiyay way ii liqmi weyday in maxaabiis iyo arday isku dhex jiraan marka anoo tiina ka duulaya macallimiintii quraanka dhigaysay iyo ardayda caruurta waalidiintii dhashay iyo gudoomiyaha degmada markaan wada tashi sameynay la tashaday marxaladii u bandhigay tusay halis mooyaane inaanay khayr ugu jirin meesha ya oo halista in laga taxadiray tahay ardaydiina meelahaas oo dadka walwaalan markii hore loogu talagalo la isticmaali waayay ay dawladda hoose siisay xakaas loo wareejiyay madrasadiina waxaan ugu talagalay markaa inaan maxaabiistu kaliya wax ku barno oo xabsigu wax ku barto waa garsoon amaankiisa la ilaasho oo qofkii qof dila deewna si sahal uga bixin ama intay beel soo cadhooto ina kaygiiba halkan ku xidhanaan oo dhan subaxda ma aanay ka haysan haddii beel waliba ay aragto in ninka halka galay aan laga daba tagi karin amaankaasi uu sugayo qof walbana sharcigu ku kalsoonaanaya marka annaguna inaan muraayadii qaybtayada ilaa dawladda meel baan ugu beeganahay wixii rehabilitation maxaabiista dhaqan celintoodii amaankii inaan wax walba dawladda dhinacii annaga ay noo igmatay inaan xooga saarno kana soo baxno aad baan u rajo weynahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ceebteeda nagu asturo waxa weeye Maxamed Cabdirasaaq Xirsi telefishinka caalamiga ah Star TV geedka nabadda ee degmada Garadag